dhegaystayaal sheekooyinka faraha badan ee maskaxda Soomaalidii hore ay maleegtay kuna saabsan dhulwaaga iyo dabeecadihiisa waxaa ka mid ah kuwa aan maanta idinku jalbeebin doono. waxaa la yidhi dhulwaa aad u gaajaysan baa wuxuu soo galay toon uu markaa ka hor dhowr jeer ka loogsaday. waxay ahayd toon uu dayrtii hore ka liibaanay oo xoolo la baylihiyey uu marba neef kala tegey. maantase meel loola guurayba ari iyo lo' toona midkoodna laguma oga, inkastoo qashku isqabsaday oo geed hoose iyo geed saraba ay dhirtu hamashowday. meelihii uu ceesaamaha iyo sabeenaha ku layn jiray isaga oo tuuxaynaya ayaa geeda dheerdheer oo hortiisa sariiran sharqani uga baxday. mar qura ayay hilidiiro cusubi ku soo korodhay. indhaha ayuu galkii ka soo bixiyey oo miciyihii isku lisay. wuxuu isu qaabiyey waxa sharqama inuu haabto soona qabsado. isaga oo aan hurdin buu riyoonayaa. sharqantii iyo shababaxdii u baxday buu u dhaga taagayaa. afarta jaho ayuu midba mar indhaha ku fiiqayaa bal inay bidhaan dagani u muuqato. hase ahaatee wax yar kadib bay hawadiisii hoos u soo dhacday. hankiisii baa dabaysha raacay. show sharqantii u baxday waxay ahayd uun raxan daayeera ah oo geedaha hareeriga ah midba mid uga boodaysa. kama sadayriyeene ma wuu gaari karaa? ma wuu inta duulo dhirta dusheeda ugu tegi karaa? waa maya jawaabtu. dhulwaagii wuu murugooday. markaas buu ku hamiyey, allow aad ibaratide yaa daayeerow dhulka kaa hela. isaga oo sidaas isaga murugoonaya ayuu ku hambabaray laba daayeeroo ay laacdan uga caddahay. iyaga oo iscaylsanayana geedkii uu hoostiisa taagnaa dusha uga baxay. isaga oo calyada qubaaya ayuu kor u dhowray. wuxuu indhaha ku joojiyey dibka guduudan ee daayeerka lagu yaqaan, duurjoogta kalena uu kaga duwan yahay. saa waxaa alla uga dhigay hilbe ay sitaanoo ay kol dhow cuni doonaan, isaguse uu ka qadi doono. kolkaas buu inta madaxa hoos u rogtay wuxuu ku cataabay hilba waa nin waaye iyo nin dabada ku warwartay. taas oo noqotay hawraar uu ku mahmaahi karo wax uu aad ugu baahi qabo qof si walba ku raadiyey kuse heli waayey, isla markaasna arkaya ruux kale oo isla waxaas si xad dhaafa inta u haysta aanay wax weynba la ahayn. sidaan ku soo xusay barnaamijyadii kan ka horreeyey, dhulwaagu waa hilib ku nool, waxaan isaga ahaynna wax kuma falo. xoolaha la dhaqdo cadka iyo caanaha dartood haddii ay dadku u dhaqaalaystaan, dhulwaagu cadka oo keliya ayuu daneeyaa. cadkooda ayuunbuu u hamuuman yahay, caana inay leeyihiin iyo in kalena war iyo wacaalba uma uu hayo. xeryaha xoolaha lagu xeraysto ayuu habeenkii u soo gabadaa si uu inta ugu dhaco uu neef ugala tago. inta uu ilbaadsiga ku jira wuxuu arkaa dumar aryaha lisaaya oo kolba haruub caana ka buuxaan qof kale oo dibadda taagan u dhiibaya si ama carruurta loo siiyo ama weel kale oo weyn loogu biiriyo. dhaqdhaqaaqaasi dhulwaaga waa u muuqdaa, danse kama laha. wuxuunbuu sugayaa inta ay dumarradu xeryaha ka baxayaan oo inta sharqantu yaraato dhinaca dhulka la dhigo. si ay haddaba u tusaaleeyaan dhulwaa iyo caano siday u kala fog yihiin ayay Soomaalidii hore waxay ku sheekaysay in maalin maalmaha ka mid ah la waraystay oo lagu yidhi horta dhulwaayow caana ma taqaan. markaasbuu sidii wax kale looga sugaayey wuxuu ku jawaabay, ma waxa madow oo muska la isaga dhiibaa? taasoo noqotay hawraar loogu mahamaaho wax uusan aqoon u lahayn ama uusan weligii arag qof inta wax laga weydiiyey kaga jawaabay jawaab aan loo joogin, aqoon darradiisana muujinaysa. curufkiisa dadka dhab u yaqaanay waxay sheegaan dhulwaagu inuu ka mid yahay dugaagga neefka uu markaa diranayo inta uu bakhtiisanayo aan u kaadine orodka kaga dherga. bal inuu caana waaye yahay hasha ama saca uu cuni doono wuxuu ka abbaaraa goljilicda iyo candhada oo ah dadka xoolaha dhaqdaa xubnaha neefka kuwa ay ugu jecel yihiin. taasna waxaad ku rumaysan kartaa sheekadii laga reebay dhulwaagii geela daaqaaya inta soo weeraray ku hormaray hal dhowaan dhashay iyo nirigteedii. hashii ayuu haddiiba candhadii ka halakeeyey. markii ay ka baxsatayna nirigtii oo u kuftay ayuu faruuriyihii kow ka siistay oo orodkii ku liqay.
inkastoo cid bahalka ka reebta ay markaas heleen labadii neef iyaga oo dhaawacan ayay fiidkii gurya tageen waana la kala xeleeyey aweysin dambe kolkay noqotay oo la gaaray wisinkii geela la maali lahaa ayaa odaygii reerka u weynaa oo warmooga ahi wuxuu doonay hashii iyada ahayd inuu maalo intuu nirigtii dibadda ugu soo saaray ayuu u yeeryeeray waxaa galabta dhacay hadduu ogaan lahaa ama iftiinadii hore ay wax u muuqan lahaayeen wuu dhaydhayi lahaa uune isba caawa weel uma soo qaateen waxaase dareen galay markii uu arkay hashii iyo nirigtii isu ordi jiray oo kala ufoonaya haddii uu isu soo eriyana sii kala durkaayo oo sii kala jeensanaya waxaa la yidhi isla markaas uu odaygu hasha iyo nirigta isu soo duwaayo waxaa duleedka goraha geela taagnaa laba dhurwaa oo midi yahay kii galabta labada neef ilkaha daray odayga qudhiisa oo dhurwaayala hadal ahaa wuxuu wax gartay markuu maqlay dhurwaagii lamaanaha halakeeyey oo isaga oo qoslaaya kii kale ku leh maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa oo uu ula jeeday candha laga nuugo inaan caawa hashu goraha la imaan nirigtana faruuryo fayow oo ay wax ku nuugtaa aanay ku ool taasina waxay gadaalkii noqotay hawlaar loogu maahmaaho cid iyada oo aan ogayn dhib weyn loo geystay isla markaasna guuldarrada lagu dhigay awgeed loogu wiirsanayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa in toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo